إننا الله يوكبد بالي تسوى قلب كلا بعد ونربينا نكون ختمه يقولون مهم سن حقيقة صومالية وحوي إن مدحوينها لا شقينه مركان ليه مدحوينها إن لا شقينا محن كوضع وحال الشقض وحين نقول ذلك الصومالي عن كلا شقينه عن لسنه عن أجد سنه عن أورورنا تبرعات يلعجوا أورورنا وطنك عن إذا مدى مشاعر كوضا بحنه عن ودنك عن وحكا قبصنه حالا نقضه حالا تغو قفك فكر لي قفك عقل لي قفك علم لبا هسو أركو marka waa mid aan rabinaa dalkeeni aan la dhisno oo khudlaayna sameeynin oo yeynaan docfaruur ku furin macnaheedu waxay noqon aan xoogeena iyo hantideenaba la garab istaagno wadankeeni waxna waan qaban karnaa billahi calaykum fikir baan rabaa inaan soo jeediyo hadii maanta jaaliyada Soomaaliyeed ee dibadda ku nool Yurub iyo Mareykan iyo Australia iyo dibadaha Carabaha iyo Afrika inta kala joogta haddaynu qaadano ciidanka Soomaaliyeed mushaharkiisa aan qaadano waa bixin karnaa lixda bilood ugu horeysa aan bixino reer Mareykan ha bixiyaan 2 bilood reer Yurub ha bixiyaan 2 bilood reer Australia hal bil ha bixiyaan reer Afrikada kale ha bixiyaan iyaguna hal bil ha bixiyaan iyo Carabaha la isku daray ciidanka 6 bilood waxaan isleeyahay 6 bilood haddaynu hawsha qabano waa in muddo ay isku diyaarin karaan tiimka iyo madaxweynaha iyo qolada joogtana ay dadka wax ugu qaban karaan oo isku diyaarin karaan weeye intaasaan rabay inaan dhaho ugu dambeyntiina waa u duceynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ee talada dadka inta mas'uulka u ah qofku ma aha madaxweyne iyo wasiiro kaliya ma aha dadku inta ma aha Soomaaliya oo dhan baa la rabaa inay wada shaqeyso oo is wada qabsato oo la shaqo geliyo madaxweynahana waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed oo dhan wada shaqo gali meel ay joogaanba qof walba meeshiisa ka shaqo gali community-yada iyo maaragtay dadka gudiyo tira badan intii loo dhiso qolo waliba meesheeda ka shaqeyso dalkoodana loo adeego wada maadsantihiin wajazaakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh